Soomaaliyeed waxay ku heshiiyeen oo dalka Soomaaliya la yiraahdo Jamhuuriyadda Soomaaliya oo xuduudo cayiman leh bad la yaqaan leh sumad iyo khariidad iyo calan leh waxay ku heshiiyeen dastuurkaas dastuurkan bogga 9aad weeye qodobka 20aad wuxuu leeyahay qof kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu abaabulo ka qayb galo kulamo ama banaanbax oo si xasilooni ah cabasho loogu muujinayo iyadoo aan ogolaansho loo baahnayn cid la ogolaansho loo weydiinayo madaxweynaha u sareeyaba Allah ka dhigay ma jiro waxaad tagaysaa page-ka 2 fiiri page-ka 2 hore u soco qodobka 4 sareynta dastuurka waa baridii hadda Kamaal uu ka hadlayo dadka heedin la baraba dastuurkooda sida quraanka kale inay u xifdiyaan bay sareynta dastuurka waxa ku qoran qodobka 4 weeye qaybta 1 shareecada ka sokow dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa sharciga dalka ugu sareeya isaga ayayna xukuumaddu u hoggaansamaysaa wuxuuna hagayaa hal abuurka iyo go'aanada siyaasadeed ee qaybaha dawladda oo dhan isaga hagaya xukuumaddu isaga u hoggaansamaysaa iyadoo marka la yiri waa la kulmi karaa iyadoo ogolaansho loo baahnayn oo qodobkii 20aad lagu soo yiri haddana dastuurkii uu leeyahay xukuumaddu kan ayay u hoggaansamaysaa oo waatii la hadda gudoomiye Kamaal yiri dacwada ayaan ka gudbinaynaa haddana in warqad ay soo baxdo oo odayaal muxtarimiina oo bulshada qiimo ku leh hotelka Makal Mukarrama iyo Giyaaja iyo Badar iyo 3 hotel oo kale in la hantaatiqiyo oo mashruuci ay wateen oo ahaa kulan xora oo iyagu aayaha dalka iyo danaha ummadda ay mas'uulka ka yihiin inay uga hadlaan in laga joojiyo oo waliba aad maaragtay si ixtiraam darra loola dhaqmo arrintaasi waa arrin dastuurka ka soo horjeeda waxba kama duwana jabhad caadi ah oo meel dad ay fadhiyaan soo weerartay mar haddii sharcigii la garab maray dawladda marka waxaan rabnaa inkastoo kulankaanba u qabsoomay oo waxyaalihii ay soo bandhigeen ay ahayd xisbiyaduna u bareereen inay kulankan qabtaan ayagoo uga jawaabaya bal maanta askari halkaas inta soo gasho inay raggaan akhyaarta iyo gabdhahan bal maanta inay xirxiraan laakiin alxamdulillah kulley waxaan u malaynayaa inay isceebsadeen laakiin intaas maahan waa in xayiraada laga qaadaa dadka bulshada oo dhan oo kulamadooda leh mar haddii dastuurkii uu sheegayo sidaas waxaan rabaa wax yar doorashada arrimaha doorashada wax yar inaan ka galo doorashadu waxay ahayd oo lagu heshiiyey 2012 sanadkan 2016 in doorasho xora laakiin shaqooyin badan ay ka horeeyaan shaqooyinka ka horeynaya afti in loo qaado dastuurkan shacabka horta marka hore la baro kadibna uu ra'yigiisa ku darsado afti loo qaado in guddiyo tiro badan oo madax bannaan la dhiso oo ay ka mid ahaayeen guddiga doorashooyinka in shuruuc tiro badan la marsiiyo baarlamaanka oo inta la diyaariyo xukuumaddu diyaariso ay ka mid yihiin shuruucda doorashooyinka iyo kuwa xisbiyada waxaasoo dhan lama soo qaban dawladdii ayadoon ogeyn marka waxa dhici kara ayay Juulaay luuliyadii hore bishaan oo kale 27deedii 8deedii aduu maalmahan oo kale ayuu ra'iisul wasaaruhu soo istaagay baarlamaanka hortiisa dabcan madaxweynaha iyo madaxtooyadana waa isla socdeen waxay yiraahdeen doorasho qof iyo cod sanad iyo xoogaa kadib ma dhici karto ma oga xitaa waxa dhici kara sanad iyo xoogaa kadib shaqooyin badan ayaa la qaban karaa 14 bilood 15 bilood shaqo ayaa la qaban karaa ayagoo shaqadii tijaabin ayay horta cabsadeen oo yiraahdeen ma dhici karto doorashadaas waaya ayaan baa la joogay shirar bay yeesheen madal bay sameeyeen baarlamaankii sharciga ahaa oo ahayd dastuurkan iyo dalka inuu yahay hay'adda u sarreysa oo ilaalinaysa sharcigan iyo
baarlamaankii waa laga taqalusay madal wada tashi baa la sameeyey madashii waxay tiri 4.5 ayaan aadaynaa kulli warqadaheedii oo dhanna waxaa ku qornaa weliba lagu cadaadinayo UN-ka iyo kulli waxaa lagu cadaadinayay in doorashadu dhacdo waqtigeeda Agoostana bishaan hadda la joogo oo July waxay soo dejiyeen jadwalkii ahaa in aqalka sare la dhiso bisha soo socotana aqalka hoose la dhiso bisha ku xigtay Septemberna in madaxweynihii la doorto ayaga soo qortay baydhabo ay ku soo qoreen hadda u dambeysay kulli madashii go'aamadeedana way ku qornaayeen 4.5 kii iyo waqtigii in doorashadu ku qabsoonto waxaan u jeednaa maanta oo 23 kii bisha July wax dhaqaaq oo jira inaysan jirin shirkii la rabay 17 inay qabtaanna inay leeyihiin bisha Agost ayaan u sii dhigaynaa shirkaas oo laga yaabo haddana shir kale inuu sii dhaco يعني dalkii waxaa la rabaa doorashadii iyo isbedelkii dadku filayeen in qiimaha laga rido midda hadda la rabo waxaa weeye waxaan qiimo lahayn oo kale in laga dhigo dadkii tirada badnaayo siyaasiyiinta ahaa ee dalkan rabay inay isbedel ka dhaliyaan in intay iska quustaan ee iska laabtaan oo marka u dambaysa odayaal la qortay oo wasaaradda arrimaha guduhu qoratay odayaashii waaweynaa horta qaar baa la isku dayay in la bedelo waa mahadsan yihiin beesha caalamka waa ku mitireen iyo dacwooyin ay xisbiyadu gudbiyeen waa lagu mitiray in odayaashii 2012 intay u arkeen inaysan maslaxadooda qabanayn inay bedelaan bay isku dayaan laakiin waa laga diiday markii laga diiday waxay samaysteen ilaa maadaama la yiri odayga weyn oo 135 ku jira odayaashii waxay qodob kale meesha ku qoran leeyihiin odayaashii jufooyinka hoose nabadoonadii ayaa lala tashanayaa waxay qorteen jufo walbaaba nabadoon bay wasaaradda arrimaha guduhu kaararsiis shaqada ugu badan oo wasaaraddu ay bixiso ay qabato waayahan waa kaarar bixinta odayaal faalsa ayay ku mashquulsantahay maxaa la rabaa in lagu musuqmaasuqo doorashadii qof iyo codkii waa la diiday odayaashii saxda ahaa waa lagu kalsoonaan waaye waqtigii saxda ahaa wax waa la qaban waaye xagee loo socdaa waaye dalkan meeluu ka yimid ayaa loo wadaa marka sharciga la ixtiraami waayo marka mandate-kii dowladdu ay haysatay ee ahayd Agoostana baarlamaan inuu yimaado July-na in madaxweyne la doorto markii intaas dhici weydo oo madaxweynihii yiraahdo maalinkii intii laygu ogaayo doorashadii lay doortay waqti ka ziyaadaha rabaa baarlamaankiina uu yiraahdo waqti ka ziyaadaha rabaa waqtigii aniga aan ogaa dalkan meel xun buu socdaa ilaahay ha naga najeeyo haddana dadkii la cadaadiyo wax غير sharciya lagu cadaadiyo waxaan rabnaa marka halkaas oo kale markay arrintu marayso oo masaajidkii qayladu ka yeertay dadka Soomaaliyeed maxaa u yaala dadka Soomaaliyeed waxaa u yaala maalinkii 15 bishan waxaan ku cibro qaadan karnaa ka dhacday dalka Turkiga horeyna halkan waa uga dhacday 2006 bay uga dhacday niman xoogan oo hub haysta oo kaariyaal haysta oo diyaarado haysta oo waliba dadka duqeynaya ayay shacabka ayagoo faramaran oo fanaanada iyo shaatiyaal iyo camburadooda gabdhihii wataan ayay ka soo horbaxeen bal kaare qof hor jifa ka waran oo kaarihii shacabkii ay ka awood bateen waxaa jirta marka halkaas waxaa ku jirta awoodda shacabku waa awoodda ugu xoogan dowladduna waa shacabka waxaan rabnaa dadku ha tashado kulankana bilow uu ahaa kulamo kale ku xigi doona sharcigana siduu sheegay gudoomiye Kamaal waa la isla aadi doonaa oo dacwooyin ayaan gudbin doonaa haddii la yiraahdo waxaa weeye markaasna haddii sharci ka jira dalkan iyo haddii kale waa soo tijaabinaynaa gudoomiyaha maxkamadda sare ayaa meesha jooga waa la keenay waa ognahay siduu ku yimid laakiin siduu rababa ku yimaadee waxaan ula macaamilaynaa sida uu yahay inuu gudoomiyihii maxkamaddii sare yahay ayaan ula macaamilaynaa sharcigan qodobadiisa iyo xadgudubkiisa iyo ciddii ku xadgudubtay la asaga ugu sarreeya la yiri madaxweynaha ka sarreeya ra'iisul wasaaraha ka sarreeya wasiir ka sarreeya markaasna jawaab ayaan soo celin doonaa wixii aan nimaano laakiin yaa la isdhigan runtii gaajadii hadda laga hadlayay oo gudoomiyihii salaad uu ka hadlayay iyo dhibaatada laga hadlayo
bil kuma sii darsan karno laba kuma darsan karno saddex kuma darsan karno iska badaa 4 sano kale